بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo jimcaha taariikhduna ay tahay 16 bishii 11aad waxaan ka hadlayaa doorashadii ka dhacday 13 bishii 11aad dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. marka hore alxamdulillaah rabbil caalamiin oo wax ilaahay lagu xamdiliqo in si wanaagsan oo nabadgelyo ah ay ku dhamaatay oo goobihii ay ku soo gaareen. waxaanu maqlaynaa hadallo ka soo yeedhaya mas'uuliyiin saddexda xusbiba ah. waxaanu leenahay haddaanu nahay dhaqankii gobolka Sool anigoo afkooda ku hadlaya dalkani maanta waa nabadgelyo. doorasho una wuu galay komishinka. waxaanu leenahay idinkaa dadkan mas-uuliyaddeeda laydiin dhiibay. haddaanu dhaqanka nahayna dushaanu idinka ilaalinaynaa oo dushaanu idinka eegaynaa. sidii wanaagsanayd ee doorashada loo galay waa in wanaag ay ku dhammaataa. saddexda musharaxna waxaan leeyahay Muuse Biixi waxaan leeyahay haddii lagaa helo waa inaad Cirre iyo Faysal Cawraabo aad u hambaliyeysaa. Cirrena haddii laga helo waxaan leenahay waa inaad Muuse iyo Faysal aad u hambaliyeysaa. Faysal haddii laga helo waxaan doonaynaa inuu Muuse iyo Cirre u hambaliyeeyo. dadkana dad wada dhashay weeye. Soomaaliland maanta dhibaato iyo buuq iyo qaylo kama ogolin. waliba waxaan la sii hadlayaa beelaha dhexe ama isaaq baan la hadlayaa. haddii Soomaaliland markii hore idinku aad iska wadateen maanta haddaanu hartinahay waanu soo galnay. siyaasadii waxbaanu ku leenahay. doorashadii waa galnay. haddaad hore isugu dili jirteen ama isu qabsan jirteen maanta ma ogolin. intaa in la eego dhibaatada Soomaaliland kama ogolin. waxaan leeyahay natiijada ha lagu qanaco, go'aanka ha lagu qanaco. waxa weeye ha la isugu hambaliyeeyo. ciddii guuleysatayna si wanaagsan ha loo qanciyo. komishinka saasaan leenahay. haddaanu hartinahayna maanta dalka Soomaaliland in dhibaato ay ka dhacdo raali kama nihin, mana aqbalayno umana dulqaadanayno. taana waxaanu furaynaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba. nabadgelyada Soomaaliland ku soo caaniya nabad maashay waa in la adkeeyaa. waa in waxa weeye buuqa iyo qaylada la joojiyaa. waa in go'aanka komishinka la sugaa. salaadiintana waxaan leeyahay xil weyn baa ina saaran. waa in aynu dalka nabadgelyadiisa iyo isku xidhnaantiisa iyo horumarkiisa ka shaqeynaa. intaasaan shir jiraayad maanta u qabtay. waxaan leeyahay mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad go'aanka hal la sugo. wixii jira komishinku waa inay si degan oo wanaagsan dadka ay u qanciyaan mas'uuliyiinta ee xusbiyada ah. xabadna kama ogolin dalkan, dhibaatana kama ogolin. waliba haddaanu hartinahay mar saddexaad baan ku celinayaa. maanta waynu isugu soo galnay. dalka waxbaynu ku wada leenahay. haddaanu hore idinka maqlay maanta waxa weeye siyaasadii iyo awoodii iyo dhaqankiiba intaba waa ku joognaa. ma aqbalayno idinkana aqbali mayno isaaqo. dalkana idinku balihidin waa wada leenahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo halkan uga tacsiyadaynayaa dhibkii yaraa ka dhacay Burco. intii ku dhimatay ilaahay qofkii ku dhintay naxariistii jannaha siiyo. intii dhaawactay ilaahay ha boogadheeyo. dhib intaa ka badan raali kama nihin. intaana waa u tacsiyadanay eheladii iyo qaraabadii ka gurooday ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadgelyada ha la ilaaliyo.